السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga qaaliga waa idin salaamay. isku soo noqosho wanaagsan oo xiiso leh. say iitihiin caafimaadkiina maasha allah tabaarakallah. asxaabta soo dhawaada, waana mahadsantihiin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. jisadeena janno allah ka dhigo. waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer. abaalkiina ma gudi kari, abaalkiina ilaahay baa gudi karo. maasha allah waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. mahad celintiina inta kuma soo koobi kari. maasha allah mahad celin salaan kadib, mahad celin kadib. asxaabta haddaa igu cusubtihiin fadlan subscribe ii saara. haddii markii ugu horeyso oo channelkayga aad soo booqatid ay tahay fadlan subscribe ii saar. haddii hore ay ila joogteen videoga like iyo share iyo comment waana kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga ah. maasha allah tabaarakallah. asxaabta maanta waxaa noo wadaa alaab oo maasha allah timaha kaala arag ka dhigayso. maxay ahayd alaabtan saddex shay ay ka kooban yihiin. maasha allah saddexda shay waxaa waaye aloe vera gel, vitamin E gel iyo maxay ahayd fish oil. maasha allah fish oilka asxaabta inaba caadi ma aha. fish oilka faa-iidooyin badan oo leeyahay. maxay ahayd siiba fish oilka oo omega 3 ku jiro. omega 3 maasha allah waxaa waaye nafaqooyin oo hilibka iyo malaayga iyo maxaa la dhahaa hilibka iyo malaayga iyo chickenka doorada laga helo. maasha allah tabaarakallah aada u fiican yahay. marka fish oilka maskaxda hataa wuu caawiya. maskaxda macnaha wuxuu ka dhigaa maxaa la dhahaa relaxation camal oo ku sameynaya. aada iyo aada u fiican yahay maasha allah tabaarakallah. horta fish oilka faa-iidooyinkiisa haddaan dhaho intaan kusoo koobaya kuma soo koobi kari. maasha allah faa-iidooyin badan 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 oo leeyahay. asagoo sidiisa ana maxay ahayd waa la qaataa lafaha iyo lafaha ayaan dhihina maxaa la dhahaa wadnaha iyo maskaxda iyo wuxuu u fiican yahay maxay ahayd lafaha. maasha allah tabaarakallah. fish oilka haddaa taqaanin asxaabta waaba taqaanin, haddaa aqoonina geedkaanayti maasha allah faa-iidooyinkiisa iyo wanaagiisa iyo waxtarkiisa inta kuma soo koobi karno. sidoo kale timaha aada ugu fiican yahay. maskaxda markaa marsatidoo kale daalka iyo waxyaabaha badan oo maxay ahayd maskaxda ka buuxa oo maxay ahayd wuu ka shaqaysiinaya maskaxda si fiican oo uga shaqaysiinaya. aada u fiican yahay. haddaa laqdidna kaba sii fiicanba. maasha allah aloe vera gelka dacartana waaba ogtihiin maasha allah wanaageeda ayadana iyo say u fiican tahay. maasha allah xagga timaha oo timaha jajabaya iyo timaha aan koreynin, timaha oo maxay ahayd oo markasta maxaa la dhahaa oo maxay ahayd rifmay maa la dhahaa. maasha allah bahashaaniita aaday ugu fiican tahay aloe vera gelka ama dacarta. maasha allah ka dayma darnaanina. vitamin E-ga isagana sidoo kale vitamin E-ga wuxuu kaa caawinayaa, wuxuu ka istaajinayaa timo jajabka iyo maxay ahayd timaha oo ma aragtay aan bixaynin iyo timaha wuxuu ka dhigayaa straight, macnaha timaha dhan wuu isku kaa raacinaya. kanna marka waxay ahayd haddii dadka oo timaha oo maxaa la dhahaa timaha aan koreynin macnaha oo ama koriinkeeda dib u dhacay ama daciifka ee haddaa haysatid timaha noocaas maasha allah isagana sidoo kale wuu kaa caawinaya. saddexdan geed asxaabta markii la isku daro nafaqadeeda maasha allah tabaarakallah aan ku dhahay wax maxay ahayd oo caadi ma ahan. maasha allah waana u bogi doontiin. sidoo kale anaa isticmaalay, anaa maxay ahayd ka helay. mar walbana waxaan jeclahay wixii aniga aan isticmaalo aan ka faa-iido oo maxay ahayd waxtarkooda aan arko inaan idinkana idinla soo wadaago. maasha allah tabaarakallah. mar walba horta ilaah baa mahad iyo shukri leh oo na siiyey meel oo macnaha aan wax isku wada wadaagna ama isku weedaarsano. maasha allah asxaabta marka way fiican tahay wixii adiga oo maxay ahayd oo ka faa-iiday inaa qofka walaalkaagana uga faa-iidaysid. maasha allah marka kan mar walba gurigooda dadka anaga Soomaali haddaan nahay dad dhif ima ogi inta badan Soomaalida kaniiniyaashka oo maxay ahayd supplement kala dhaho kale waxyaabaha oo maxay ahayd kaniiniyada lafaha oo maxay ahayd oo lafaha saacideeyo ama caawiyo kale iyo maxay ahayd wadna xanuunka waxa ka kaniiniyada ka caawiyo dadkoo kale. adi marar badan Soomaalida ma fahansana ama ma jecla I don't know ma aqaan waxaan dhaho horta yaan ku dambaabin waxaan ku
kuma arkin badanaa Soomaalida ma isticmaalaan waxyaabaha oo supplement haddana waxaa dilay bariis iyo baasto mar walba anaga marka waxaan karsanaa bariis iyo baasto bur canjeero iyo waxaas marka waa loo baahan yahay waxyaabahan oo maxay ahayd oo kaniiniyaasha oo fitamiinada jirkaaga oo u baahan macnaha kusoo celinaya inaa isticmaashid macnaha waxaan u maleynaa markii oo la joogo qurbahoo kale inay daruuri tahay because mar walba waxaa fiican jirkaaga inaa ka fikirtid macnaha caafimaadkiisa maxaa lahaa fitamiinadiisa iyo lafahaaga saa oo dhisi lahayd iyo caanahoo kale hadii dad oo waxaa jiro caanahan cabin oo kale marka kaniiniyo oo waxaa jira calcium oo kaa caawin calcium oo ku keenayo kale marka kaniiniyadaas oo kale hadaa qaadatid maasha Allah caano kale uma baahnid marka geedka native vitamin E maasha Allah tabaarakallah wax badan oo kaa caawinaya xagga maxay ahayd caafimaadkaaga aaduna u fiican yahay dadka wadna xanuunka qabo kale dadka maxay ahayd maskaxda xoogaa ma aragtay oo kii kale anyways geedka native wanaagiisa inta kuma soo koobi karno Google-ka gali fiiri muxuu faa'iido u yahay benefitkiisa muxuu yahay fish oil-ka maxaa laga dheefaa muxuu u fiican yahay maxay ahayd muxuu dhibaato ii keeni karaa marka wax walba Google-ka macnaha ku fahansiinayo maasha Allah tabaarakallah asxaabta haddana waan isku darsanahay saan iskugu darsan lahay isaan umarsan lahay kula tamayga maxay ahayd asxaabta maxay ahayd dabcan saan umarsanayo ma arki doontiin laakiin waxaa idin la wadaagaya saan u qarsanayo sida loo marsanayo hadii qof walba yaqaan sida caadi timaha inta shanlaysid horta timaha markaa shanlaysid kadib waxaa jida u bixinaysaa macnaha si oo scalp hoose ama maqaarka hoose u marisid maasha Allah maqaarka hoose marka marisid nafaqada dhan macnaha waxaa la rabaa horta waxa markaa nafaqeynaysid inaa hoos ka soo bilaawdo kor bas waxba kama taraa marka hoos marka marisid oo safiican ugu soo masaajaysid oo kale korna marka fooda inta dambe ku masaajayne bacayaasha oo ma aragtay shower cap kala dhaho kala dhakab ku siisane maasha Allah tabaarakallah marka iska dhaqmidaan ku dhahay timahaaga quruxdooda iyo maraagooda iyo dhalaalkooda maasha Allah adaaba ka sheekeyn adaaba maxay ahayd arki doontid sidoo kale dadka bidaarta leh hadaata oo kale geedkan wax badan oo ka caawinaya dadka bidaarta leh oo macnaha timahooda oo maxaa lahaa timaha bidaarta kale oo kale hadaa tahay maasha Allah meelaha salxayaha dhan asaf fiican ugu rugaysaa jirka hoose tinta fooda dambe maasha Allah si fiican hadii masaajan ku dhahay kula dhaqaaqaysaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo kadibna masarkaada dhab ku siisane maasha Allah wallahi samsam maxay tira dhawaana arki doontiin ma hadana waan qasanayaa waan isku darsanayaa isku darsan lahaa idin tusaay bismillah vitamin E ka bilaabay horta hal qaado oo vitamin E ah feeradana maasha Allah aad u fiican tahay maxay ahayd waxtarkeedan inta laguma soo koobi karo kaniiniga hadii oo macnaha soo gadanaysiin maxay ahayd kooska laga helaa marka waxa iska fiirinaysaa gelatin inuu gelatin ku jiro gelatin oo ku jiro oo gelatin kana oo laga sameeyay maxaa la sida malaayga oo kale ama khudaarta oo kala jiro laakiin gelatinka oo donfaarka macnaha oo maxay ahayd kolay meesha marka akhrisid kula meesha marka tagtida asxaabta ogaanaysa marka aad vitaminka E bahalkii aan ku daray vitamin E ma aha sorry fish oil kan ku daraya laba xabaan ku daraya
fish oilka asxaabta maasha allah sharoobo oo malaayga ku sawirana jirta Afrika qofka yaqaano oo sida ilmaha markay qunfacaan oo kale markii la siiyo maasha allah qunfac dambe kuma arkaysid xabka iyo waxa dhan oo ka soo fujinaya inta kuma arkin ay uma maleynaa marka in ilmaha la siin karo laakiin mar walba dhakhtarkaaga weydii oo maxay ahayto asaga ku sheegi doono laakiin qofka weyn caadi waayo oo isticmaali kara maasha allah hadaartid wajiga marsan kartaa timaha marsan kartaa jirka marsan kartaa ما شاء الله أصحابته وجيتينا كلها ماشانيتي هلا محي هيك قرحيا كنعضي ما شاء الله انتي نفتن وجرتو أما دقدقاقينا وحا أسمرين كنا أسمرينينا أو اسك طبيعي wax chemical aan lahayn oo maxay ahayd oo dhibaatana aan ku keenaynin waaye waxaan waa ka heli doontiin asxaabta insha Allah soo tijaabiya kareemkeeni ama maxay ahayd maxaa la dhahaa maskeena timaha waa inoo diyaar insha Allah ila video lamid aan ku kulmi doono asxaabta waxaan idinkaga tagay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subscribe ka iyo like ta iyo share kana waa xaqiin